maxkamad ku taalla dalkaasi Jabuuti ayaa maanta min 2 sano oo xariga ku xukuntay 3 ka tirsan culimada dalkaasi oo lagu helay inay la kulahaayeen shaqaaqooyinkii dhawaan ka dhacay dalka Jabuuti ee ka dambeeyay doorashooyinkii baarlamaanka. 3dan sheekh ayaa lagu kala magacaabaa Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, Cabdiraxmaan Barkhad Good iyo Giira Migal. Khadka telefoonka ee Jabuuti ayaan goordhaweyd kula xiriiray xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Jaamac Suleymaan Cali waxaan ugu horreyn weydiiyay waxa lagu helay ragaasi. saddexda wadaad waxaa lagu xukumay 2 sano oo xariga oo 18 bilood xarig adag yahay iyo 5 sanadood oo in laga xakamay xuquuqdoodii siyaasadeed. xeer ilaaliyuhu waad ogtihiin wuxuu dalbaday 3 sano marka oo xarig adaga iyo 10 sano oo xakamayn xuquuqdooda siyaasadeed. marka maxkamaddu waxay garatay inay 18 bilood oo xarig adaga iyo 5 sanadood oo xuquuqdooda siyaasadeed laga qaado inay ku xukumtay garatay. kuwa kale badan baa iyaguna jiro iyaguna la dhagaxtuurka iyo abaabulka oo lagu haystay oo dhalinyaro iyo iyaga la iska sii daayay. waa gartay marka 3da wadaad dambiga lagu helay ee xabsiga ay ku mutaysteen waa maxay? 3da wadaad dambiga lagu haysto waxa weeyaan abaabul bulsho in ay dadka shicibka rayidka ay ilaahayn ishubeeya ka hortaga askarta iyo dabcan dadka dariiqa maraya shiida qalalaase qasiya qalalaase wadanka galiya abaabulka bulsho ee hubaysan oo uu dhigayo sharciga Djibouti in qofka lagu xukumi karo ilaa 10 sano xariga. waa gartay marka maxaa cadeyno soo bandhigteen maxkamadda hor keenteen? horta dambigan lagu haystay nimankan wadaadada waxa ay falalkan galeen doorashadu markii ay dhacday doorashadii dhawadii February waxa cadeynaha kamid ahaa dabcan nimankan wadaadada waliba geeraha kala leeyahay miskiid buu ka eedaami jiro imaamka ahaa miskiidkaasuu dad ku shirinayay dhalinyar ku shirinayay dadka badan ee mujtamaca ee meesha ku shirinayay kuwa badan baa jira oo iyagu mabda'iyan ama siyaasad ahaan la socda laakiin aan rabin wadanka booqan iyo qalalaasahan iyo boobkan iyo shiidkan kuwa dad kamid ah ayaa iyagu dawladdu yidhi ma ogtahay war waxa kan anagu nimankan lama ogolin. waxa kale oo jirtay abaabulkaasi doorashada ka hor baan ogay nimankaasi inay ku tala jireen maadaama aan ka haynay telefono ay soo dirayeen oo Cabdiraxmaan Bashiirku markaas isagoo Yurub jooga November markaas aan wadankaba joogin telefoon soo diray Giiraha oo lahaa dhalinyar badan ururay ilaa 1,000 qof oo hubaysan oo naftooda horay oo dagaal diyaar u ah oo inay dhiig ridaan si aan uga faa'iideysano doorashada February dhacaysa 22-kayga si aan qas iyo qalalaasa meesha u gelino oo wadanka u laaqno. marka kamayna murmin bacajaradii iyo qabashadii markii la dhageysino way garteen iyaga dadkii meesha joogay inay codkooga ahaayeen. sharcigu waxa uu dhigayaa oo baneenayaa hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka inay dadka halis ku ah ammaanka qaranka in telefoonadooda la dhageysto. caddeyntaana dabcan maxkamadda waa la keenay. waa gartay laakiin dadka arrintan dacwadda korka ka eegaya waxay leeyihiin 3dan wadaad waxa loo xiray loona xukumay waxa weeye mucaaradka ayay la safteen dambi kale ay galeen ma jirto saasaa la leeyahay. kolley dee ma ogtahay bini'aadanku nooc walba waa leeyahay ma ogtahay marka laga yaabaa inay kuwa iyagu xaqiiqda ka fogsaa u macnaystaan laakiin anu waxaan idin sheegayaa in nimankaasi horta wixii ma dhacay dambigii oo dad ma la hubeeyey oo wax ma la jajabiyey oo askar ma la dhaawacay oo buq ma ka dhacay waxaas waa wax xaqiiqo meesha taala iyagiina ma ka dambeeyeen oo dadkii iyagii ay ururinayeen ay miskiidka ku ururinayeen ma yihiin maadaama ay taasi caddahay annagu November markaa nimankaa waxaa ka qabanaynay haddii doorashada kabacdi waxba aan dhicin maba rabinba inaan dacweynoon dabagalno laakiin markaan aragnay aqligooga inay ku tala jiraan wixiina ku dhaqaaqeen falkiina galeen dabcan nabadgelyo dimuqraadiyadan iyo doorashadan iyo siyaasadan iyo mucaaradnimada nimanka kan ka hadlayaan waxa ay suurto gali kartaa un hadduu wadankii degan yahay xasilooni yahay nabad yahay markaan war walba waa inaan nabadii la sugana dabcan waajib bay nagu tahay dawladdeedaan. waa gar dadka ay hubeeyeen halkay joogaan waxa weeyaan waa dad kamida kuwii ma ogtahay ay muqaadaraadka u akhrinayeen meelaha ku wacdiyeen miskiidada ku urinayeen kamid weeyaan dadka magaalada dhalinyarta magaalada ubay kamid yihiin. marka hadda ma waxa jiraan leedahay dad hubaysan oo iyagu hubeeyeen oo Jabuuti ku sugan oo dawladda ka soo horjeeda? maya marka aan hubka aan ka hadlayo waa bud iyo dhagaxtuur iyo dad dariiqa iska socdo oo shicib ah oo
oo baabuurtoodii laga jajabiyey askar markii dad meesha la iskugu soo ururo ileen wadan degan oo ammaana ma og tahay normal ma inay dad is urursadaan oo budad soo qaataan markii dadkii la kala kaxeeyay leeyahay ku dhaqaaqay inay askartii dhagaxyeeyaan inay waraf la dhacaan inay baabuurada ka jajabiyaan inay shidaan laakiin dabcan markii askartii shaqadu way qabsato dadkii waa la kala kaxeeyay marka hubka aan ka hadlayo waa buuq nooc qalalaasa ah saasoo kale weeyaan maaha dad meel joogo oo hub ileen dawladdu ma sugaysa la sugi maayo dad meel jooga intay weerar dawladdu kusoo qaadayaan waa gartay marka laakiin dad ay hub u dhiibeen hub halisa ma jiro walaalkayow dhagaxuba waxa weeyaan waa hub dariiq qof iska socdo baabuur wata marka la shiido ama askar ma ogtahay nabadgelyada sugay marka la soo weeraro budad iyo dhagax lagu soo weeraro de kuwa daxray baa jira kuwa jajabay baa jira ma ogtahay isaguba hub waa noqon karaa ma ogtahay kaasi waxa uu ahaa xeerlaaliyaha guud ee dalka Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali oo goor dhaweyd igu warramayay khadka telefoonka dhinaca kale waxaan isna la xiriiray qareenka difaaciyay saddexdaasi sheekh oo lagu magacaabo Sakariya Cabdullaahi waxaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xabsigooda maanta de walaal si sharci darra ayaa loogu xukumay 2 sanadood xadhiga oo 18 bilood ay tahay xadhig adag iyo 5 sanadood laga qaado waxay sharci u leeyihiin maxay ahayd doorasho iyo inay voteeyaan amba ay ka qayb galaan wax waa gartay marka xabsi adag maxay ka dhigan tahay xabsi adag 18 bilood bay xidhnaanayaan bay ka dhigan tahay xabsigooda sidee baad u aragtaa xabsigoogu waxa weeyaan waxa siyaasad baa lagu xidhay waxa la leeyahay doorasho iyo wax walba kama qayb gali karsan 5 sanadood soo socda wax kale looma jeedo xadhigoogu wuxuu ku dabaqan yahay qura in laga qaado inay maaragtay doorasho ka qayb galaan iyo reer Djibouti isbedelka ay doonayaan nadiide wax maaha wax sharciyeysan annakuna apiil baan ka qaadanay geedkii labaad baan taginaa waa gartay xeerlaaliyaha waan la hadlay wuxuu yidhi waxyaabaha lagu helay waxaa ka mid a inay dad abaabuleen oo ay burbur iyo dhaawac inay dadka u geystaan arrintaas soo dhawaa wada been waxa weeyaan reer jees ahaa barigii hore oo imika lagu yidhi waa la soo degnay oo ay ka dhigan tahay dadka mucaaradka Djibouti baa la soo degay waa reer jees ahaa reerkii baa diidan maanta cidii la soo degtay ee ka badisay doorashadii wax kale maaha wax cadmay keenin dhageysi sharci aan ahayn baa lagu qaaday codkoogii miyuu ahayn apiil bay ka qaadanayaan geedkaas la tagayaa waxaan uu sheegay xeerlaaliyu waa wax wada beena aan sharci ahayn raggaas waxa loo jeedaa un doorasho kama qayb gali kartaan waa gartay adima lagu ogolaaday inaad markhaatiyaal keento difaacdid maxkamadda horteed markhaatiyaal horta markhaati layma ogolaan wixii lagu soo حكومة للدونية إن لو كان لدقيستو لإيما كينين أيانتي حكم كدعية أيانتي لفريسين يوم بالا كاني وحي شيغيان وحبكما حدنا وحدين أو رقا دنبي لقوها يستحدون السياسة هاي هاي ليهين ودن كجيبوتي ليراهو يسبدل بان دونينا أنا هاين لقوما هايستو وحد ميكينين تلفون كدقيسيسو وشرع درو عيد شرعيقا كنت مجرين ورقدينا لمسين دقيسينا لمسين ودن كقفك دقيستي بعد دنبي قليا وقرتي لكن عيدن كأمنيكو هادي قف وغشك يعني إنو أمنيكو ودن كحاليس كلينيو ودن والبا ويكاد عدا ميسان قفك او أركان إنو حاليسكو يقرنك سو مرد دقيسان كران لما دقيسان كرو هورتو وبين دنيدا وحاسي ويكبابادي هادي دعدو أنو أمامليو laba saddex nin oo wadaada in Djibouti amnigeega ay gelinayaan markay oran jireen ay waxba hadleena iska aamuseen lahayn bal u fiirsado xal markay yiraahdeen quraanka beenka ma sheegayno oo wadanka dhibaato ku jira markaasay dambi noqotay in la dhageysto sharci dhigaya ma jiro walaal واقت لكن سيدا لشيغيو او xeerlaaliyu sheegay ma jirtaa in telefoon ay kula hadleen dad gudaha jooga oo abaabul iyo kicin iyo in la sameeyo ciidan dhan ilaa 10 qof ma jirtaa eedamahaasi waxaasi wax sallamaha waxaasi wax wada beena waxaasi codkoogi maaha teknolojiyada jadiidka waad ogtahay in codka wuxuu doono lagu qaban karayo waxaasina markaa anoo dafcuuga ah in horteedna loo keenay hayd oo dhageysan karno on ka soo qori karo waxaasi wax sal ku fadhiya ma waa wax been ku abaabulsan waa wax la leeyahay ninkaasi aan xidhno on dadkaasi aan qabanno wax kala maaha waxa weyn electionkii laga badiyay
aqlabiyadii ay heshay maaragtay xusbiga mucaaradku taa daraadeed unbaa sida loo sameeyey wax kale kuma jirto xeer ilaaliyo wuxuu leeyahay oo dhan waxay dawladdu soo samaysay waa wuxuu isagu ku dhawaaqayo wax ka jira oo sharciga dariiqeegii maray ma jiro kaasi waxa uu ahaa Zakariya Cabdullaahi qareen u doodayay 3 wadaad oo maanta maxkamad ay ku xukuntay xarig waxaana uu warramay wariyahayga Harun Macruuf oo Washington jooga halkaas ka dhageysanaysan waa idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington